السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد مجالي واد مهتسنتين meelaha kala duwan ee wadda majaalay laga kala imaaday maanta maartii goosha majaalay aan dhignay adu imaateen waad ku mahadsantiin boqolkiiba boqol waad ku mahadsantiin mahad gadaasheed waxa aan inagu yeernay wadda majaalay maanta goosha loo dhigay maalin hore aan u dhignay haddana maanta aan inagu yeernay waxay tahay reer afkaab inaan nabad aan ugu baaqano si aad ka warqabtaan reer afkaab khilaaf baa ka dhex yimid khilaafkaas oo gaaris ka imaaday Nairobi ka imaaday yacna reer afkaab dhexdiisa ka imaaday sidaa darteed inaan khilaafka asaga aan xalino gogol reer majaalay ay fidiso gogosha ayada la iskugu imaado reer afkaab arinta uu ka taliyo nabad la iskugu imaado oo reer afkaab nabad xaggaba maartay heshiisiisa la sameeyo labada nin ee iska rab socotay walaalaheena reer afkaab inay burburinin laga qabto gacan bira lagu qabto gacanta lagu qaban hayana gacan reer afkaab u wada dhan yahay oo aqliga reer afkaab u wada dhan yahay oo madaxweynta reer afkaab u wada dhan tahay inay noqoto midaan maanta iskugu imaanay een baaqa ku dirayna waa midda ayada sidaad ogsoontihiin reer afkaab waxa uu talin jiray maxalli jiray dhaqgeed dhaqana u taliyo wuxuu leeyahay reer afkaab jeeman guud buu leeyahay wuxuu leeyahay rag siyaasiyiin oo siyaasadda ka baxay haddana maartay informa reer afkaab oo yacnaha siyaasiyiinta kamid ah oo dhaqanka iyo talada reer afkaab ka taliyaan buu kamid yahay ragii ayaga ha maxaa dhigi jiray waa iskhilaafeen mar hadday iskhilaafeen ayaga dhaxooda khilaaf uu ka imaaday oo ayaga ay kala boodeen oo laba tiim noqdeen makasti iyo wax yacna dadkii wax maartay wax garad makasti iyo dadkii maartay duur ku jirtaana taladii ayada ahayd way ku faafaysaa meel walba ay tagaysaa waxay noqon markaa laba koorood intay reer afkaab dhex imaato labada koorood reer afkaab inay isku laayaan ninba nin uu taageero waana midas maanta socotee taladeeda aan ka digayno maalin hore arintii aan qalqaalinay waxaan rabnay in la iskugu imaado maxaa la dhihi jiray meesha la yiraahdo ama dhadhaab ama dhamajaale in la iskugu imaado sidaa darteed waxaa dhacday dadkii roob la'aan baa dhacday waa la kala guuray ninba xoolihiisii buu ku mashquulay ninba meel buu u guuray xoolihii baa dadkii gacanta u galay carradii waxaa dhacday maartay in marka dadkii ay isku imaan waayaan sidaa darteed marka waxaan rabnaa arintaas in dib la iskugu soo noqdo oo reer afkaab gogol iskugu imaado oo madaxweynta reer afkaab loo yeero jeemanka reer afkaab loo yeero ugaaska reer afkaab loo yeero wax garanadka reer afkaab u talin jiray ay imaadaan innaga oo shantii ward ee dhadhaab kamid ahayd aan ka koobanay shan baan nahay wardka laba siigaala markii laga reebo shantii ward ee kale dheertu abaqaylo dhadhaab dhamajaalay liboyo shantii ward iyo madaxweyntii wax garadka reer afkaab inay isku imaadaan inay isweydiiyaan oo leeyahay warqayladu xagay ka imaatay say wax u jiraan hal maxaa reerka u ah shalay maxaa nagu dhacay shalay wixii nagu dhacay waan garanaynaa nin walbana uu la socdaa wixii shalay tan nagu dhacay ninkii ku yiraahdo aan wada tashanno waxa weey ninkii yiraahdo aan wada hadal aan wada tashanay ka dhigantay macnaheedu reer afkaab inuu wada tashado oo hal go'aan wada gaadho oo hal jida ku guuro nin walba wuxuu doonahay laakiin wiil reer afkaab intuu duur ku maqan yahay ama oday reer afkaab duur naga maqan yahay ama gabadh reer afkaab ay meel ku maqan tahay ma aqbalayno inay maxaa la dhihi jiray reer afkaab aan arintiisa aan maartay aan dhahno waxbaan ka talina oo isku wadayna aan dhahno waxaan rabnaa reer afkaab oo midaysan oo hal ruuxa oo walaala oo weel wax isku cunahayo oo hal dariiq hayo inaan hal jida maanta aan wax ku doonano cawliyahan ugu doonano maxaa yeelay kursiga inaga kaliya ma lihin cawliyahan baa nala leh maanta laba nin oo kale cawliyahan ah taan kuwa kale inay soo baxaan waa macquul sidaa darteed maadaama kursiga cawliyahan uu kula leeyahay inaadan yacnaha aadan sasiinin kaliya oo aniga kaliya ku tartay aadan dhihin ee aad xisaabtantaa la rabaa xisaab wax leeyahay inaad ku socotaa la rabaa ruuxu markuu qofku wax sameeynayo waa inuu calculator wax isku dhufto waa inuu ogaado xisaabtiisa waxa uu soo baxay inuu ku qasaari inuu ku faa'iido waa inuu xisaabo oo isfiiriyo intaada golaha tagin waa inaad xisaabtan la imaataa marka waxaan rabnaa reer afkaab inuu xisaabtamo golaha maanta uu la tago wax la garan karo oo macquul ah oo reerka lagu hogaamin karo haddii la waayo ma badhacaysaba meel madaxweynta ay joogto oo madaxadii ay joogto oo maxalli jeemanka joogo oo ugaaska dhaqanka joogo oo wax garadkii reer afkaab culimadii joogto ma dhici karto inuu reer afkaab maanta yacnaha ama uu islaayo ama uu heshiin waayo marka waxaan ku baaqaynaa nabadgeliyo in reer afkaab la isku keeno waan ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu